بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkani waa alxaqiiqa. barnaamijkan maanta ka hadlaya waxa uu noqonayaa mid aan wax ku saxayo oo aan kaga hadlayo maayarka cusub ee caasimadda Hargeysa oo aan cadad bixin oo muddo dhowr bilood maraya in durba la damcayn la inqilaabo ama kursigii lagu ruxayo. arrintaasaan ka faaloonaya local iyo si guud labadaba waan uga hadlaya. dadka waxaan leeyahay luuqadda dadku yaqaana haddaan ku hadlo waata wax lagu fahmaya haygula yaabina wuxuu masaxayaa. intaana faallada bilaabin waxaan doonayaa سعيد عبد السمد أحمد بدوي أو سعيد عري لو يقانا صاحب كي أو يساقوا نينكا كرسا كرو حيا فعل كسمين يا إنه يمدقيسين هذا الذي سي طيب يتعلم كفا الله أنه كانت ربحنه سعيد هذا الكيس اللي يسوه الرسينية هيا سعيد أنوغو هداني دي ورمو وحنو مغرا هرقيسا hargeysaanu dhoofay hargeysaanu baryo tagay hargeysaan wax u soo helay waxaan idiin sheegayaa hargeysi uma baahna ganacsato boobta hargeysi waxay u baahan tahay dadkooda ilaashada ninka ganacsadaha ah ee hargeysa masaakiinta inta uu dekadda ka soo dejiyo wuxuu doono qiimuhu doona hargeysa siinaya looma baahna hadday dawladdu wax ka qaban weydo dadku qacantooday wax kaga qabanayaan magaalada hargeysa caawimo dibadda oo taallaa ma jirto kuwan loo doortay kuu doonaha ahaadee inu caawimo u doonaa muhiima waxaa kaloon idiin sheegayaa qof kasta oo dalkan loo doortay oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi ugu horeeyo waxa laga doonayaa wixii lagu doortay ee uu ku kaambeyn gareeyay inuu fuliyo waqtigii waa la soo dhaafay waxa kaloon idiin sheegayaa golayaal cusub baa la doortay waxaa loo baahan yahay xukuumad cusub oo golayaasha la jaanqaada xukuumad cusub oo golayaasha la jaanqaadaa loo baahan yahay dadka hargeysa degani waa isku mid in wax loo wada qabto ayay u baahan yihiin aniga waxaa iga ballana hargeysaan ku dhashay hargeysaan ku barbaaray hargeysaan wax ku bartay hargeysaan layga doortay anigu waxaan ahay fair citizen in hargeysa anigu waxaan ahay nin hargeysa u maqnaanaya ilaa inta ay gaadhayso adduunka oo kale ugu yaraan dalalka East Africa caasimadahooda aniga dadkii doortay ee aniga i doortay iyo kuwaan i dooranba idinka ayaan xildhibaan idiinahay idinka ayaan idiin maqanahay idinka ayaan idiin samaynaya golayaasha qaranka fulinta fadhida iskama gaadhi karaan go'aan aanay kala tashan golayaashooda iskama goosan karaan waxay doonaan adduunyadu waxay ku dhisan tahay transparent adduunyadu waxay ku dhisan tahay in wax la isu sheego adduunyadu waxay ku dhisan tahay marka muwaadiniinta wax lagu soo rogayo in wakhti la siiyo in muwaadiniinta lagu yidhaa hawshaa iyo hawshaasaa socotee la socda salaadiinta dhaqanka lama taaban karo waa birmagaydo yaanay
yaanay dhaqanku noqonin tob ab inta lagu shubto hadla waa inay dhaqanka ilaaliyaan waa inay milgaha ilaaliyaan waa inay sida loo kala dambeeyo ilaaliyaan anigu waxaan idiin sheegayaa ree hargaysow haddii cidi ina ilaalin weyda innagaa lafaheenna ilaalinna wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu cabdijabbaar maxamed xuseen telefishan kown cable hargeysa laaxin badan iyo qalad badan ayaan hadalkiisa ka muuqda mana aha mid si kama aw dhacaye waa mid ku talagala oo tala ku yimi xog baan u raadiyey waan xuuraan tegey wixii iga muuqday iyo xuuraankaygii waxay isugu soo biyo shubteen inay tahay arrin qaladkani mid ku talagala oo lagu soo tashaday oo aan keligii ahayna lagu heliyo siciid waxa uu ka hadlay arrimo badan oo aan isu taagi doono qodob qodob bilowgii isagoo hargeysana la joogay oo golaha deegaanka hargeysa ka mid ah ayuu baxay sweden buu tegey iyo dalalka yurubta waxaa la bilaabay soo dhoweyn siciid baa baxaya siciid baa la soo dhoweynaya yacni nin xisbi furtay ama doorashadu diyaara oo ololeynaya ama fanaan dee magaaladii tagay oo show dhigaya ayaa la moodayay waxaa ku xigtay muddo markuu halkaa joogay ee uu soo noqodkiisaba dhow yahay in warqad suuqa la soo geliyo foojari ah oo warbaahinta la wareejinayay warqaddaasoo laga dhigayo in maayarka hargeysa qoray waxaa ku qoranina wax dee carruurtu aanay qori karin ayaa warqadda ku qoray oo foojari la sameeyo suuqa la gashanayo cidday ka imanaysaana cid kale maaha waa ciddaa wax isku toostoosinaysa ee gardarrada muujinaysa warqadda waxaa lagu qoray maayarku wuxuu amar ku bixiyey inaan la soo dhoweynin siciid maayarku dadka wax soo dhoweynaya iyo kuwa wax sii dhoweynaya iyo dowladdu toona ma amarto haddaan cid soo dhoweynaya maanta dee cidan lagu amar qaadanaya ma jirto waa hadal raqiisa iyo sheekooyin la sameeyey oo xaalad lagu abuurayo ama qalad ninkaa laga waayey oo loo raadinayo waxaa xigtay siciidoo soo noqday oo farda lagu soo dhoweeyey oo xaalad abuuray sidii buur madow yidhi iga horkaalaya oo isagu isa soo dhoweeyey ila isaga isa soo dhoweeyey iyo isagoo burqaday furka tuuray oo waxaa maqlayseen ku hadlay wixii ku hadlay baan isu taagaya siciid waana ka faalloon doonaa siciid wuxuu ku hadlay hadallo midiba mid ka daran yahay oo kala wada daran hargeysa hadal ma baahna buu yidhi wakhtigii waa la soo dhaafay nin waliba wuxuu ku ololeeyey ayaa laga rabaa wakhtigiina waa la soo dhaafay isagoo maayarka hargeysa u jeeda wakhtiga la soo dhaafay ee uu sheegayo maanaan garano maayarku 6 bilood buu joogay xilli la qabsado ama la dhaliilo ama la canaanto ama lagu canaanto wuxuu ku ololeeyay in lama gaadhin siduu wax u wadaana way wanaagsantay waa qodob iyo hadal meel waayo iska yidhi qodobkaas siciid waxa uu yidhi hadal aan mas-uul ka soo bixi qof mas-uul ku hadli karin oo kicin dadweyne ah oo ammaanka ka hor imanaya waxa uu yidhi ganacsatada waxay doonto wax ku iibinaysaa haddaan dowladdu wax ka qaban gacan baa loola tegi doonaa dee inuu sheego qaladka ganacsatada talada iyo waxa lagaga baxayana uu keenaabay hadduu caqli hayo laakiin sida carruurta iyo dadka makasta ayuu gacan ba wax lagaga qabanayaa shirka la yimi waa hadal aan mas-uuliyad ahayn kaasina waa qodob xukuumad cusub oo golayaasha la jaan qaada ayaa loo baahan yahay buuri golayaal cusub baynu dooranay golayaasha cusub uu sheegayaa siciid waa kuwa waxay doonaan ku hadlaya ee federaal baanu keenaynaa mooshin baanu keenaynaa lehee ammaan ka soo horjeeda ee waxay doonaan ku hadlaya badankooda walow qaar rag badan oo wanaagsan ku jiraan golayaasha isaga la wanaagsan waa kuwii ay bedeleenna
ayaana loo ooyayaa maanta xukuumadda uu soo waday u leeyahy waxbay beddelaysaa way cusub tahayna muu sheegin isagu ha sheego carabkaa ku dhufto waxa uu ku hadlaynaa hadalkaasina waa kii walaalkii ama inaabtigii uu ku hadlayay maalintii hore waa qodob siciid waxa uu yidhi hargeysa waxaan ka dhigayaa caasimadaha bariga africa hargeysa yaa siciid u doortay wuxuu caddaynayaa oo hadalkiisaasi caddaynayaa inuu lagu yidhi maayar baa lagaa dhigayaa oo uu rumaystay because hadalkiisay ku cadday waa olole nin maayar doonaya oo hargeysa wuxuu ka dhigaya sheegaya weeyaan dee nimaan xil hayn oo halkaa fadhiyaana oo xubin golaha deegaanka ka midina meeluu wax ka dhigi karo iyo meel wax ka bedeli karo awooddeedba malooda ciduma dooran hadalkaas wuxuu inoo caddaynayaa wixii isagii kuwa kale kusoo ballameen siciid isagoo dhaadanayoo laabta garaacaya ayuu haddana yidhi waxaan ahay citizen hargeysaan ku dhashay hargeysaan wax ku bartay hargeysaan ku koray waa aya cidda markaa citizenka loo sheeganaya in axmed moogaa citizen loo sheeganaya maqandaliya caloluka iyo woos waaqrooba waa kuma ninka citizenka loo sheeganaya ee aan ahayn siciid halkaa iyana wuu haddii alla kugu roon yahay wuu bareeri kari waaye wuu dhaatay oo inuu abtirsadaaba dee ahayd ila intaas buu ujeeday siciidow abtirsiimo iyo dhaadasho ayaad laabta u garaacaysa oo inaad reer guuleed tahay ayuunbaa dadka u sheegaysay waanad ku dhaci weyde haddaad guuleed ku abtirsato dee isna sheekh dhamiryaalo ku abtirsadaayo meel bay wada tagaa waxba dheerid been baad naftaada u sheegaysa waanad gardaranta shalay toole jaamac shabeel ayaa tan oo kale ay soo martay oo xilligii jiciir kursiga ku raxay arrintaa jaamac shabeelle waa ka duwanay tan siciid oo kale oo tan siciid waa qoys baa soo tashaday oo isagii cabdillaahi xukuso iyo xisbiga waddani baa ku jira arrintan kursiga lagu raxayo maayarka arrintaa jaamac shabeelle waa ka duwanaydoo laba kooxood boo is haystay ahaayeen oo golaa deegaanka ah oo jaamac iyo waxay isu gruub ahaayeen yuusuf karaxi iyo niman noocaasa jiciirna koox kale isku gruub ahaayeenoo inuu warcadahan xogeeyaa noqday waddani iyo allah yarxame xasan xayr ka dhintay iyo rakaab noocaasa markaa jaamac shabeel kursiga markuu ku ruxay jiciir reer guuleed baa ugu dagaal badnaa u hanjabay khadar axmed lek wuu ka badheedhayba wuu joogaaye haddana markii loo garqaaday jaamac shabeel iyo jiciir sidan xogta ku hayo jaamac shabeel baa ka gar helay jiciir way ka dagaalamayseen maalintaa jiciir baana u dagaalamayseen sax iyo qalad hadoontaa ku dagaalamo maantana xaq waan u leenahay gardarrada noo muuqanaysa inaanu ka hadalno oo aanu runta idiin sheegno kuwa waxaa wadaw qaladaadka dhacaya haddaan laga run sheegin oo cidda qaladkale dhabarka aan loo saarin waxbay noo hagaagi maayaan taariikhaan ka sheekeeya la dhibsado oo runun qof quro igu beenin karin waxa la idhaha maxaad uga sheekaynaysaa waxaan idhaahdaa oon kaga jawaabaya taariikhda haddii la sheego oo ka wax saxayna la sheego ka wax qarribayna la sheego oo cidda qaladka gashay dhabarka loo saarayo qaladba muu dhaceen soomana noqdeen ninka wax qarribaya anu dhuwan la taariikhda waxa iskuullada lagu dhigtaa ee jaamacadaha lagu dhigtaa waa waxa saxmaan qur-aanka ilaahay ee munasalka ee kariimka ah ayaa taarikhda ka sheekeeya maalin walba waxaynu maqalnaa xamaalatalxatab iyo haddii alla kuu roon yahay abulahab waarba isku qolaynu xamaalatalxatab iyo abulahab yaynu naqaani ma inagay ahaayeen maxaa laynoogu sheegaya waxaa laynoogu sheegayaa wax ka barta oo ha habaabina oo kuwa lumay ha noqonina kuwii wax qarribay iyo kuwii wax saxayba waxaa laynoo soo hordhigayaa inaan wax ka baranno saasaa taariikhdana runta looga sheega ninka taariikhda iyo runta diidaana waa ninka wax qarribaya hadalkaygii waxaan ku soo koobaya ama aan u gelaya gobodiisii cukuse hal baan leeh cudhayna hal baan leeh qoladaa gaadsan ama abakar musena hal baan leeh
qolada cabdi ciisena hal baan leeyahay cabdikariin axmed mooge oo maayarkiina hal baan leeyahay wasaaradda daakhiliga ee somalilan ee ay hoos yimaadaan golayaasha deegaankuna hal baan leeyahay cukuse hal baan leeyaho cukusow inadeer ma siyaasadda goortaad soo gasho waad garanaysa anna waan joogay waddanka oo waan shaqaysanayay anigu markaa sidin baan u xamaalanaya orday waxaad siyaasadda soo gashay dagaalkii sokeeyaha ee 94 oo aad dagaalamaysay oo sidatay mikrofon wariyaad ahayd siyaasad shaqo kumaad lahayn maalintaynu nabadda qaadanay ee dagaalku dhammaaday waxa aynu saddex kooxood baynu noqonnay qola hargeysa loogu yimi xaaji cabdiwaraabi hogaaminayay oo dagaalka naga soo horjeeday iyo aqlabiyaddii ciidagalo oo suldaan galaal wato maxamed cabdilaahi ilaahay u naxariistay oo shuruuda ku xidhay in xaaji ibraahim cigaal iyo suldaan maxamed oo laga dul guuray suldaan maxamed baa dabatay yidhi maafishkaba keeno wax alla wixii galaal wadawaday oo dhan intuu ku dara gudaafadda yidhi maafishkaba keen bilaa shuruud oo labadaa inanee midna aan abtiga u ahay calaasid midna aan adeerka u ahay cabdilaahi maxamed daahir maalbaas midna maayer iga dhig buuri midna ku-xigeenadhi waxbana doonin midna kale saasaad siyaasadda kusoo gashay cabdilaahi magac inaga dhexeed kusoo gashay kartidaada kuma tegin aqoon laguguma soo xuran suldaan maxamed baa ku geeyey magaca ciidagalaanta ku fadhida halkaa cid kugu dhibsatay ma jirto oo xaq baad u leedahay reerkana ka mid baad waa lagu garab taaganaa 20 sanadood baad kursi ku fadhiday darajo kasta waad gaadhay agaasi baad noqotay wasiir ku-xigeen baad noqotay minister baad noqotay wax kasta waad noqotay 4 sanadood dowladdaad sii noqday labaad iminka fadhiday oo mushahar qaadanaysa wasiirkaa maanta toorne ee fadhiya 2 wasiir baa ka horreeyo midna ardaagaagu ahaa yuusuf waa saaxiibkaya waxba ma kala nihiin ka ku xigayna wuxuu ahaa ninkii gaashaanbuureed in aadan iimaan midna kumaad ruuxin kursiga maalintuu yimi toorno ayaad tidhi haleega dejiyo waana ma geydid baad leedahay kursiga abukar musow iyo toorno waa kii ku ag fadhiyay shalay ee ku garab taagnaa waxaad waddaa waxaanu kaa qaadan karayno ama lagaa dhegaysanayo inaad yar maaha reerkan adigu ma lihidee goorbaad na mulkiday eedna yeelatay inaan kaagan yari xishood oo ummadda ka xishood lagaa yeeli maayo waxaad waddo ninkaa hadlayey ee curaya furka tuurayna ninka ka dhex hadlayey wallaahi waa adiga waan ku dhaaranayaa ninka ka dhex hadlayey ee ka caqliga batay ee jarka ka tuuray ee beenta u sheegay waa adiga waxaan ceeb hayna ka qaadi maysan halkaa curaya hal baan leeyahay curayow siciidow in adeer waan kuu turaya xabaddana kor baan u ridaya weli anugu askartu markay dadku ay lexjeclada ka haysa isdilaan xabadda kuma dhuftaana kor bay u ridaan sida loo kala yaaco kor baan u ridaya saa u kala yaacdaan oo qaladka looga daaya meesha curayow in adeer 6 bilood cabdikariim kuma fadhiyin kursiga maalintaad maayarka doonaysana anu waan ku taageerayo dee kumaan aqoonin kursina laguma soo tishaabin hala tishaabiyaan islahaa maalintaasay kugu dhoweyd inaad cabdikariin la tartanto ama aad maayarnima kugu dhoweyd isbahaysigii iyo xisbigaagiiba halkaa ku dhigay oo goob cidlaa ku dhigay waxaad maalintii weydena walloodhad maanta helay waxaad ku hadlaysaana waa ceeb uun ayaad ka qaadaysaa wax allo waxaad maanta faa'iidayso kursi aad ku helayso cidda kugu tiri maayar baanu kaa dhigaynaa been bay kuu sheegtay maalintii maayarkaad noqon weyda walloodhad maanta noqonay ciidagalana ma aha mid idinku aad leedihiin qoyskiinaasi labadiina anina walaalihii oo kuraasada ku raaxaysaan idinku aad leedihiin ardaayaynu ardaagiinu dowladda ugu jiraa wuu ku jiraa wuu ku fadhiyaa kursigiisa oo madaxweyneha magacaabay oo waxaa ku fadhiyaa maxamed yuusuf ismaaciil cabdi cilmi digrin baa ku fadhiya ardaayada iyo kuraastu isma leeko mar walba qaar baa gudaa ku jira qaarna bannaanka joogaan anigu kuwa maanta bannaanka jooga ayaan ardaayadoodu ardaa tire iyo tayo iga weyn oo ciidagaliina ma jiro agaasibo kuma lihi wasiir ku-xigeen kuma lihi wasiir kuma lihi ceel looma qabo waayo shalay baan gudaa ku jiray oo qaar bannaanka joogay wasiirkii kan ka horreeye toorno iyo dhiijii ayaan wada lahaa ardaagaygu lahaa oo ina xuseen dhabeeye iyo wasiirka ina aadan iimaan
oo labadaba aanu isfardaanaba isu soo gaadhay oo laba xilka wada hayay qaarna bannaanka joogay aqligayga ay tusaya kuwii shalay bannaanka joogay hadday gudaha joogaan xaqan aanu leeyahay bannaanka inaan joogno annaga ardaygaygu maanta ardaayadii bannaanka joogay baan kuraasida ruuxi waayey adigoo gudaha ku jira na kuraasida dadka ku ruuxaysa waa ummadda ka xishooda oo isla yaaba oo ka daaya dadka waxa ku haysa ayaan leeyahay urayna abakar musan hal baan leeyahay waxaan leeyahay war maanta awrkiinii baa dhaaminaya in badan baanu magacaa ku shaqaysanayn haddaanu nimankaan garanaysaan nahay ee reer mataan maanta idinkaa kursigii ku fadhiya oo siyaasadii nagu hogaaminaya toorna nagu hogaaminaya siyaasiga mustaqbalkani waa in axmed moogo waa kaa maca xisbiyadeenii ka dheereeyey ee hargeysa oo dhan kasbaday oo mustaqbal buu leeyo oo ilaahay baa quta salaxle idinkaa maayar ka ah sanankii halkan u jooga waa xilligiinii kama xumin idina xaasidi mayno ha noqonina qaar difaac galo oo reer u muuqdo nimankaa kursiga idinku ruxaya ee dagaalamaya ee waxaa xumaanta wadaa waa shakhsiyaad cabdi ciisena maaha reer guuleedna maaha mataanna maaha waa labadaa nin ee walaalo ah ha ka dhigina reer oo ha u hiilinina iyaga oo ha siinina garab iyo qaar u hiiliya waa shakhsiyaad ayaan idin leeyahay bakar musow awrkiinni baa maanta dhaaminayo oo cumaamadiina cidi kama cumaamad weyne oo kama garcsan kama garh weyne ayn aadan faarax cumar oo intaa buuraha la fuulayey ee kuwaa kolla kaba dheere ka qaylinaya kolla buuraha fuulaya ay xabad baa dhaci doontay iyo waa la istilaya iyo garxashiisa way noo dagaaltaay lahaayeen ka daaya buu lahaayo nabadiina isaga idigu hogaaminayay aadan faarax siyaasaddiina idinka idigu hogaaminaya oo sanadkiinni iyo waqtigiinni si fiican gaariga inoogu wada oo na hogaamiya xaq baa u leediini shakhsiyaadka qaladaadku ka yimaadana reera ka dhigina abukar muuse taasaan leeyahay gaadsan cabdikariin axmed moogan mid baan leeyahay cabdikariinow anigu waan kaa soo horjeeday si fiicanna waxbaad u wadaa hargeysoo dhan baa ku taageertay somalilan o dhan inoo ku taageeri doonta waxaa la doonaya in qabiil lagaa dhigo oo god lagugu rido si fiican baad waxu wadaa waxaa lagugu dilayaana waa waxaa in bixi lagu dilay oo kale handaraab kalaad noqoto waxaad yeeshaa yaan hoos lagu soo celin yaan qoys lagaa dhigin halkii biikee lagu riday yarkii calanka sitay somalilan o dhan shacabka u garaacisay wax siinaysay yaan lagugu ridin waa tii sidoo somalilan o dhan wadata la yidhi xamar raalli geli calanka somalilanna tuur muraayad baan xidhanaya dheh halkii lagu riday uu ku jiraa maanta waa kaa fankii aan ka baxay le markuu iswaayey ee kooba inta buur fuulo inoo soo buraanburaya ee waalida ku jira halkaasaa lagula doonayaa ha soo noqoni soco oo horow soco oo dadkaaga isku wado sida aad hargeysa isugu wado oo kala wada qabiilah somalilanna isugu wado mustaqbal baad leedahay yaan lagu soo celin waa lagaa dhigin qabiil kaasaan ku leeyahay adigana wasaaradda daakhiligana waxaan leeyahay inqilaabkaa muuqda xogtiisaan haya anigu ninkaa cukuso la yidhaa iyo xisbiga wadani iyo inankaa hadlay ee butaacay ee burqaday ayaa waxaa wadwada waan og inaan waxba qaadi karayn barasaabka wallahi laga soo dabaalanay inaan wasiirka daakhiliga wax taabamanayn barasaabka ku fulan waxaan leeyahay halkaana laaxin baa ku jiray ogaada hadalkayga waxaan kusoo gunaanadayaa kay dhibsanayo sidii shalay toole loo haystay jaamac shabeel ayuun baan maanta u haystaa kuwa kursiga ku ruxaya eela magay in axmed mogey iyo toorno haddii siciido waad dhaadatay oo inaad yar waad dhaadatay oo waxaad tidhi hebel 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 60 sano baan ahay waxaad ka xishootay inaad tiraa nin reer guuleedaanahay intaas baan u jeedi ilaa 60 san kale ma jireen cidina igama 60 sano aniga weligeena cid magaalada hargeysa kama sheegan anaa ku dhashay aabbahay baa ku dhashay dabada cadaadda aabbahay reer cigaal geediyo maxaad fanaxa baa dhalay oo waa hargeysaysna hooyaday waa hargeyso waa u barkhad leh waa aw cabdillaahi geelo hargeyso bilaabay ceelka dhogor ayaa hargeysa laga cabbi jiray iyo ka xaraf midna xaaji faarax fadhiyo midna cabdillaahi geelo fadhiyo kaasaan ka soo jeeda hooyadeena waxa dhalay guulan oo reer xirsi ah oo iyana waa hargeysa waxaan leeyahay 3 generation baan hargeysa ah oo meel loo dhaafay weligeena cid kama sheega siciidna waxaan leeyahay
وحلالي واحد وضواف الشيء عيب وحان انك قاعد استبقى ودك نكر على قلي واحد سميسي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.